بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waan salaamayaa salaanka gadaal saaka waxaan rabaa inaan la wadaago fariin ku saabsan dhibaatada gaarka ah dhibaatada guud ee caalamka oo dhan maanta saameysay si gaarana dalkeena dhawaan looga sheegay in ay wax ka jiraan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in horta Ilaahay waxaan u baryayaa in dadka Soomaaliyeed Ilaahay ka badbaadiyo Ilaahay weligiisba asiga masuugooyinka jiray intii duruufaha gaarka aan ku sugnayn Ilaahay naga badbaadi jiray tanna in Ilaahay naga badbaadiyo ayaan Ilaahay ka baryayaa intaa kadib dadka waxaan kula dardaarmayaa in ay dadaal badan muujiyaan in aan la dayalsanin in aan maxaan ku raadaayo loo qaadanin in ay wax walba sidii caadiga ay diinay sahlan yihiin in nadaafada lagu dadaalo qofku inuu xoolo haysto inaanu xoolo haysanin maaha nadaafadiisa heer kastoo ku dadaali karaa inta ay hadba awoodiisa siiso inuu nadaafada ku dadaalo in maxaan ku raada laga dhowrsado laga fogaado meelaha loo badan yahay isu imaatinada iyo ismucaanaqaynta ama hab isisinta dadka Soomaaliyeed caadada ay u leeyihiin ayadana baryahan in la joojiyo salaanta gacanta in la yareeyo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaa dadka ku filan in la isku salaamo in aad iyo aad loo yareeyo dadkuna in ay dhaqdhaqaaqa intay yareyn karaan ay yareeyaan anigoo og in dadka duruufo gaar ay ku sugan yihiin oo inay dhaqdhaqaaqaan noloshooda ay ku xiran tahay haddana intii la yareyn kara dhaqdhaqaaqa in la yareeyo isu imaatinada in la yareeyo maxaan ku meelihii lagu kaftami jiray lagu caawiyi jiray inaan la tegin laga dhowrsado intaa kadib annaga weligeen wuxuu Ilaahay nagu badbaadi jiray diinteena islaamka quraanka kariimka aan akhrisano dadka Soomaaliyeed aafooyinkan masiibooyinkan markay jiraan sida Ilaahay uu noo sheegay waa in la badiyaa rabbi tuugana waa in la badiyaa waana in la badiyaa akhriska quraankana waa in la badiyaa si fardi ah iyo si jamaaci ahba quraanka loo akhriyo Ilaahay aan nagu badbaadinayo Ilaahay aan nagu soo badbaadiyo hadda ku horeeyana intaas kadib waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed Ilaahay hana badbaadiyo asiga ayaa soo badbaadi jiray duruufihii aan ku jirnay oo dhan dadkuna dadaal ha muujiyaan hal la iskaalmeeyo hal la isu qalbi samaado hal la iscafiyo qalbi samaan ayaa looga gudbi karaa haddii alla yiraahdo yaa kamid ah waxyaaba loo gudbi karaa hal la isu qalbi samaado walaalkaa cafi walaashaa cafi maxaan ku dhahay Ilaahay u dhawaaw baryada Ilaahay badi quraanka akhriskiisana badi Ilaahay wuu na badbaadinayaa Ilaahay idinkiis insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.